الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهدي إلهي وحن برينا إنه سونكينا صلاتنا صدقتنا وحدنا نقابله ما دام ما تاي قبضتها هاي رمضان إلهي وحن برينا إنه دمان تاني نقابله ملك السون جوج نبأ تذكر مسلمين تصومنا إنه إلهي عملكم كاقبله سونكم كنا كاقبله وحا halkan jooga dad badan oo deeqa sida oo u sida dadka abaaraha ku tabaaloobay u sida iyo meelo kala u sida iyo jooga marka wax weey intaan deeqa gelin waxaan doonayaa inaan yar oo warbixina horeysiyo hada yeer waxaan ka hadalaa abaar dhulkana waxa laga soo sheegaa inuu roob daay waxaad moodaa kolka labada hadal inay iska hor imanayaan waxaan uga jeednaa dhulka horta waa dhulkii abaarta ku dhacday dadkii abaaroobay dadkii xiraysnaa dadkii waanay wax u geynaynay dhulka roob waa helay barhkii roob baa helay barhna weli roob ma helin dadku weli inagama kaaftoomin dadku weli inagama kaaftoomin waxa weeye dhulka xeebaha roobka imika ku daa roob wax soo saaraya maaha wuu ku daay dhulka qaarkii xeebta laakiin wax ma soo saarayo xeebaha waxaynu sugaynaa roobka wax soo saaraya bisha 9aad laga bilaabo marka waxa weeye arrintu weli dadkii way noo baahan yihiin taakulayntii hanaanay dadka wahaynay weli way noo baahan yihiin inagama maarmin tii ilaahayna waynu wada baahannahay dhammaanteed guddidu waxa weeye ina maalinta shuwaal dhammaado maalintu shuwaal dhammaado 6 shuwaal inay baxdo weeye oo dhulkii soo eegto dhulkii raashin u baahan iyo kuwii talo kale u baahanba inay la soo eego weeye oo dadkii la soo arko oo la soo maro dhulkii waxa weeye tayda kale laanay kale waxa weeye bini'aadmiga noo dhaliilaa dhici kara dadka waxaan u qabanayno dhaliilaa dhici kara dadka walaalaha ah ee anay wax soo dirtay haddii ayna dhaliilaan hanoo soo sheegaan waanu qabanun waanu ku celinun hadalku naga dhammaan maayo dhammaan waxaanu mahadnaqayaa cid kastoo wax soo diratay ku in badan soo diray ku in yar soo diray maadaama gabagabadii ramadaan aan ku jirno waanu mahadnaqayaa dhammaantoodna waxaan allah u baryayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inuu u laabo iyo ilaahay u baryayaa imikana waxa wareejinaya bismillahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam halkan maanta waxaan guddoonsiinayaa guddiga tabarucaadka iyo ururinta abaaraha waxaan guddoonsiinayaa deeq ka timiday urur dhalinyareed oo badbaado la yidhaaho ku kala nool arriga markaa waxa weeyaan qatar ama dooxa iyo ingiriiska marka insha allahu taala lacagtaas waxaan rabaa inaan hadda guddiga ay la wareegaan waxaanan kuwaas ragga ku tabaro ay runta soo dadaalina inaan rajayn ilaahay inuu marka ka abaaliyo lacagtii oo dhan markaa waxaa iga guddoomiya markaas gudoomiyaha guddiga deeqdaas lacageed oo dhan $2,420 markaa waad mahadsantihiin markaa waxyaala bismillahi raxmaani raxiim ibraahim ducaale waxaan ka guddoonnay $2,420 waan tirinay waa ku sax waa sida sheekhu sheegay oo ay soo direen ururka badbaado oo ku kala nool qatar iyo ingiriisiga waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ururnay lamadaasi soo diray lacagta ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inuu ilaahay tu ka qayb badan ugu bedelo inuu ilaahay shaqo barakada siiyo iyo caafimaad iyana loogu baryaynaa annaguna ammaanada noo soo alla barya inuu ilaahay naga karsiiyo inuu meesha ku socotay gaarsiino bismillahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نحن أولا نقول مع إلينا محد كوزة إلهي سبحانه وتعالى عليه معنتي إن سوق جالسي رمضان ودب بيسي وعاطني مكوحيا أي كارسيين إلى هذا كبرينا عفو عامة أي كبرينا محب الله من محمد كل شيء لنا ذكر الله المحسنين تاع أصادري زكاة الفطر ذا أصادري ذكر ولا له أصادري زكاة الفطر ذا وحصادري قيد لعقدن كن إياه 500 وحصادري نووي بعد صادري مجال استفرج لينادو
waxaana soo diray cumar cali cabdi masjidka tawfiiq madaxdiisa wey waxaa kaloo halkan iyadan aan ku haynaa oo uu soo diray nuur obsiye farad oo UK London ah $650 oo saaxiibkeeda garfadheesha xasan tahaye lagu soo hagaajiyey waxaanu garanay haddii aanu nahay guddidii taakureynta abaaraha aanu nahay lacagtan fidri blanda lagu soo hagaajiyey maalintii u dambeysayna ay ahayd meelaha ugu habboon inaanu ku bixino labada meelood oo kala ah isbitaalka degmada iyo xabsiga jeelka degmada boor waxaan mid walba guddoonsiinaynaa haddan hortaydan ay fadhiyaan halka waxaa soo horeeya fursiya muuse xuseen oo ah madaxa maamulka administrationka isbitaalka degmada fursiya waxaa laga guddoontaa 4 kiish oo bariisa oo aad ka qaadayso bakhaarka boonada cabdilaahi xaaji ciise aad ka qaadaysa mar labaad haddii aan ku noqdo waxaana maamulka isbitaalka degmada guddoonsiinayaa lacag uu soo diray aadan jibriil yoonis uu soo diray oo degan Denmark degan waxaan ugu talagalay isbitaalka qaybta dhimirka ayuu ugu talagalay marka isagana waxaan ku wareejinay Xuseen qataayidan inkaan ku wareejinay $300 ilaahay waxaan ka baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu ku daro waa naadir dadku intuu xusuustaan ay yiraahdaan isbitaalka dhimirka ay yiraahdaan waana meesha maanta magaalada ugu baahi badan xagga isbitaalka ugu la eego dad aad garanayso maskaxdooda ay nimanka aad garanayso hayntiisa dadkii haynayay dadkii ilaalinayay dadkii nadaafadda u qabanayay iyaga naftooda dadkii jalka xataa siinayay oo mararka qaarkood jalkiisa saba ay ku qaadanayaan qaarkood marka maamulka waxaan ku wareejinay administrationka foosiya ayaan ku wareejinay bismillahirrahmanirrahiim waxaan kala wareegay sheekh cabdilaahi sheekh al-jawhar lacagtaas aad arkaysaan waa $300 oo qaybta dhimirka ah iyo warqadda boonada ah oo ah raashin loogu talagalay isbitaalka guud ee Boorama runtii aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idin mahadnaqaynaa idinka soo xasuustay walaalihiinna baahan oo had iyo jeer xasuusta oo aad baan idinku mahadnaqaynaa halkan waxaan ku wareejinayaa taliyaha xabsiga degmada Boorama Saciid Xuseen Caynaan oo ku magac dheer sayada ku magac dheer raashin ay soo direen walaalaha iyaga maxay hayday masjid tawfiiq arada Norway istafarjar kaasi oo qaybtiisii oo aan u qaybinay xabsiga iyo isbitaalka aan u qaybinay raashinkaas tiradiisu waxay dhan tahay 4 kiish ayay dadka qaybta isbitaalka aan u qoondaynay marka xabsiga aan u qoondaynay marka taliyaha nagu guddoon dadkaasi waa loogu soo tabarucay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan cadeynayaa anigoo ah taliyaha xabsiga gobolka Awdal inaan kala wareegay sheekh beledka magaalada sheekh Cabdilaahi sheekh Cali Jawhar iyo guddida tabarucaadka iyo ururinta abaaraha inaan kala wareegay lacag fidriya oo ay soo direen dad muslimiin oo ku nool qurbaha oo raashinkaasi wuxuu leeyahay 4 shiish oo 25 kiilo waxaan caddaynaya kala wareegay waxaan caddaynaya inay maxaabiista jeelka sida ay tahay ay u gaari doonto raashinkaasi sidaa darteed waxaan u mahadnaqayaa dadkaa soo diray dadka ay soo wakiisheen waxaana leeyahay dee had iyo jeer waa la ogolaha dhibtu ka jirto ayuu jeelku ka mid yahay runtiina dhibaato weyn baa ka taagan oo maxaabiis badan oo ku xiran tahay waana nabadgelyada wadankuna wuxuu ku xidhan yahay haddii tuugii qabriyo cabkii wixii oo dhan baa ku jira marka waxaan leeyahay dee sidaa iyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh